بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا وقبل كل شيء مهد ونم الله بارك سبحانه وتعالى رئيسيا بيسابا إلهي تبارك وتعالى إن سوق قارسيي مالمهن آدك وقيمها بدن بشا عرفت بنكي ظهره سادة سعودين وحي نغصو فودلي أما إن نغصو وجهن عيدي عرفو أما عيد الأضحى وعيد الأكبر أي إن نغصو وجهن عيد waxaa ilaahay uu inoo jideeyay oo rasuulku inoo jideeyay calayhi salaatu wassalaam udxiyada iyo markaas waxa weeyaan gowraca udxiyada iyo gowracu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi fasalli lirabbika wanxar macnaheeduna waxa weeye salaada ciidda ilaahay dartii u tuko oo oog udxiyadana gowrac sida ahlu cilmiga qaar ay ku tilmaameen. sidoo kale ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allaahi fi ayaamin macluumaatin calaa maa rasaqahu min bahiimati lancaam. ilaahay tabaaraka wa tacaala udxiyada iyo gowraca uu jideeyey nabigeenuna calayhi salaatu wassalaam sidaasoo kale waxaa ku sugan saxiixa muslim iyo keyrkii inuu nebigu gowracay calayhi salaatu wassalaam kabshayni amlaxayni aqranayni laba wan oo markaas waxa weeyaan geesale oo dharan inuu gowracay nebigu calayhi salaatu wassalaam. sidoo kale nabigeenu calayhi salaatu wassalaam wuu ku dhiirageliyay ummadda gowraca udxiyada jumlatan markaa iyo si guud waa mashruuc weeye. xukunka udxiyaduna waa mid sunno ah weeye sida culimadu muslimiintuna ay u badan yihiin oo qofkii heli karaa inuu markaa udxiyeeyo oo uu gowraco ayaa fadli badan. udxiyada xikmadda loo jideeyey waxa weeye dhowr arrimood. arrinta koowaad ee gowraca loo jideeyey waxa weeye sunnadii nabiyullaahi ibraahim nooleynteedii weeye maadaama ilaahay uu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam thumma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa in sunnadaa la nooleeyo. sidoo kale dadka foqorada iyo masaakiinta dadkaana in maalinkaa ciidda laga qeybgeliyo farxadda oo ay helaan waxay cunaan oo wixii ay cunayeenna hilibka udxiyadu ka mid yahay. sidoo kalena markaas waxa weeyaan dhiigga qofku uu daadinayo waa sadaqo waxayna tilmaamaysaa fulinta awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulku ay amreen addoonka fulinta uu fulinayo ayay tilmaamaysaa bal waa mubaalaqatun limtithaali awaamir. arrinta markaas waxa weeyaan udxiyada nooca lagu udxiyeynayo iyo waxa lagu udxiyeynayo waa xoolaha nimcooleyda loo yaqaano loda iyo geela iyo ariga. haddii uu geel yahay waa inuu neefku yahay 5 jir oo 5 sano waa inay u buuxsadeen weeye. hadduu lo yahay ama riya yahayna waa inay 2 sano u dhammaadeen oo sanadkii 3aad uu gudagalay. haddii uu markaas ida yahayna 1 sano waa inuu u dhammaaday oo sanadkii 2aad uu markaas waxa weeyaan gudagalay. sidoo kale markaas waxa weeyaan allahul mustacaan udxiyada neefka lagu udxiyeynayo waa inuu shuruudan soo socoto uu leeyahay. da-da aan sheegnay waa inuu leeyahay. ceebna waa inuu ka fayow yahay oo wax ceeba waa inuun lahayn oo hilibka wax u dhimaysa. markaan leenahay hilibka wax u dhimaysa haddii ay tahay maalan dee wan la tumay oo kale iyo orgi la tumay oo kale iyo dhibaato malata noocaasi. laakiin ama neefka hadduu seenye yuhuna geesaba lahayn oo kale iyo ama geesku markaas waxa uu jaban yahay oo kale iyo
dhibaato male laakiin markaas waxa weeyaan Allahul musta'aan dhaawac kale jirka waa inuu soo gaarin duleel oo kale jeexdin oo kale dhuti oo kale wixii la mid ah waa inuu soo gaarin ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحوري 4 لا تجزئ في الأضاحي حديث الترمذي غيرك أفر أضحية مركز وحويا الله المستعان مجدان مدة كوبادي وحوي ومدة دقيهيدو أي جوجوانيهين أضحية مركز وحويا مجدان sidoo kale markaas Allahu musta'aan midda dhutinaysa ee dhutigeedu cadi yahayna udxiyada markaa ma gudayso sidoo kale midda weyda iyaduna markaas waxa weeyaan markaas Allahu musta'aan ma gudayso midda weyda ee lafahayn waxba laga cunaynin ee dhuuxaan lahayn midda afraadina waa midda markaas waxa weeyaan Allahu musta'aan xanuunsanaysa ee xanuunkeedu uu cadiya marka waa inuu neefku neefayow oo ceebihii ka fayow waa inuu yahay neefkaasi oo wax ina iyo dhaliil ah waa inuuna lahayn aslan sidoo kale markaas waxa weeyaan waxa lagu udxiyeynaya markaynu intaa ku garanay nimcooleydii ay tahay da'da la rabana da'da aynu sheegnay ay tahay neef caafimaad qabana uu yahay neefku inta in leeg buu ku filan yahay hadduu lo iyo geel yahay 7 qoys ayaa isku darsan kara haddii kaloo ari uu yahayna neefka arigiihi ama riyaha noqdo ama idaha noqdee hal qoys ayuu ku filan yahay arinta kale markaas waxa weeyaan Allahu musta'aan alayhi tuklaan ee kale inuu u gudbaynaa waxa ay tahay udxiyada goorma la udxiyeynaya aslan goorma ayaa la udxiyeynaya udxiyada waxa la gowracayaa waa markaas waxa weeyaan salaada ciida marka laga soo baxo salaada ciida oo wali la galin ama aan laga soo bixin lama gowraci karo oo nabigeenu calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri qofka marka gowraca marka salaada ka hor waa hilibu ehelkiisa iyo qoyskiisa u hormariyay kaliya qofkii gowraca markaas waxa weeyaan Allahu musta'aan salaada ciida kadibna waa gowracii markaas waxa weeyaan la qabay ee sharciga ولهذا أبو بردة بن النيار أي النبي عليه الصلاة والسلام وحكوه رسولك إله يو أنا هيلب كاغو هاوغور غيان إصلاحاي وان قورعي مركز صلاة دي بنتانا أصاب بحنا كهر بل كورهم بكويلة وحو يري وهيلب أدوهر مرسي إهل كاغا مركا وفإنما هو اللحم قدمت لأهلك أرنت كلاء مركز حويا الله المستعان وقتها مركا وإن لا إلاليو صلاة عيدة وإنه كدن بيسو هذا ما مالك عيدة أيكو أيكتاي ما مالك عيدة كما أيكو مالك عيدة قفكي هلاو قورعيا مالك كحيتاء مركا عيدة أيام تشريق مالك كوبادنا وقورعي كرا قفكو مالك كحيتاء مركا حويا أيام تشريق مالك اللبادنا وقورعي كرا مالك صدحادا أيام تشريقنا وقورعي كرا ومركا مالك عيدة يصدح لما الماضي كدن بيابا ومركا سحويا الله المستعان عليه تقلان ويقوديسا ayo markaas waxa gowracii waa sax weeyi arinta kale inuu baarujeena waxa weeyi udxiyada la gowracayo ee markaas waxa weeyaan qofku uu gowraco waxa fiican oo fadli badan inuu isagu gowracda ayaa fadli badan oo isagu markaas waxa weey gowraco bireeyo hadii kale cid wakaashana dib markaa had cidda laakiin uu wakaalanayo qof muslima waa inuu yahay marka la gowracayana bismillaahi Allahu akbar ayuu qofku oranaya marka Allahumma taqabbal minni ilaahiga aqbal hadaadan Allahumma taqabbal minni carabiyahan aadan u badhihi karina waxa tiraahdaa marka bismillaah Allahu akbar ka bacdina markaas waxa weeyaan waxa tiraahdaa ilaahiga aqbal neefka marka aad gowracaysana xagga qiblada ayaad u jeedinaysaa oo neefkii marka sidaas aad u jeedin lugihiisii iyo markaas waxa weeyaan Allahu musta'aan alayhi tuqlaan waa inay xagga cadeed ka dhac ay jiraan madaxiisuna xagga cadeed ka soo bax waa inuu jiro si uu markaas waxa weeyaan xagga qiblada neefka uu loogu jeediyo markaasoo qiblada uu neefku u jeedsado waxa markaas waxa weeyaan Allahu musta'aan la qabaa neefka markii la gowraco
markaas waxa weeyaan la dhamaystirana waxaa fiican inaan lafihiisa aan la jajabinin neefka waxba lafihiisa inaan la jajabin oo waxa weeyaan la rigaaxin sidoo kalena haddaad cid markaas u yeeratay oo uu ku qalayo oo مثلا dadka markaas waxa weeyaan cid baa markaa u googeysa hilibka wax hilibka kamida waa inaad ku leeshin haddaad ku tiraahdo neefkan waxa weeyaan iqal haragiisana adiga ale bishardi arintaasi xaraam weey haddii aad tiraahdo neefkan iqal lug baad leedahay xaraam weey waa inaad markaas waxa weeyaan lacag ku leeshiisa lacag waa inaad ku leeshiiso oo tiraahdo 200 500 kunkaas ayaan ku siinayaa iqal waa inaad tiraahdo markaa ha ka bacdi markaa hilibka dadka aad siinayso qofkaasi kamid uu noqon karaa laakiin lagu heshiiyo bayci oo kala ay noqoto baan la ogolayn neefkii marka la gowraco hilibka qayriinka in lagu qaybiyo oo dadka masaakiinta iyo dariska iyagu si ay biyaha u badsadaan iyo maraqa ama ay u yareeystaan qayriinka in lagu siiyo ayaa fadli badan markaas oo waxa weeyaan neefka adiguna qayb ka cunto qaybna qayriinka aad ku bixiso sida ayaa fadli badan markaas Allahu musta'an wa alayhi tukulaan marka udhiyada insha Allah ta'ala hadii ilaahayna yaan la fudaysanin ha laga faa'iideyso qof kasto awoodi kara ha udhiyeeyo ha gowraco insha Allah tabaaraka wa ta'ala ka bacdina markaas waxa weeyaan ajriga aadka u qiimaha badan iyo dambi dhaaf ayuu ka helayaa qofkii insha Allah tabaaraka wa ta'ala inahaas ayaanu udhiyada ku soo koobayna waxaan raacinayna maalinka ciida waxay leedahay aadaab gooni ah intaan udhiyada ka bixin udhiyada sidaas oo kale waxa aadaab bay leedahay aadaabteedana qaybaha aan sheegnay oo markaas waxa weeyaan qaabka loo gowracayo iyo waa kamid weeye isla markaa aadaabta waxa kamida mundidaasi waa inay af leedahay oo neefkan aan lagu silcinin oo nabigu calayhi salaatu wassalaam waa ka yiri xadiidka muslim iyo qeyrkii إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته قفك وإنه مرمركاس حويا من دوح قورعي سواء أفضل وإنه كو قورعه وإنه مرمركاس حويا محوها من دسا ورقا أو كوكركرو أو كسلعيو وإنه مركا سمين مركا أدبت وحكم ذا dadka waa udxiyeynaya ciid kulli waa loo xilxirtaayo waa la isku diyaar gareeyaa qofka udxiyada gowracaya waa inuuna markaas waxa weeyaan timaha xiranin timuhu ama kuwa madaxa ku yaala ha noqdaan ama kuwa hoose ee cawrada agteeda ku yaala ha noqdaan ama kuwa kalkisha ku yaala ha noqdaan markaas waxa weeyaan wax timo la xiri kara ama shaarafaha ha noqdaan wax tino la goyn kara ma jira aslan sidoo kale waa in markaas waxa weeyaan cidiyahana uuna iska gurin markaa وصحيح مسلم با waxa ku sugan nabiga عليه الصلاه والسلام wuxuu yiri إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفاره شيئا hadii ay 10 kaasi dilxija ay galaan oo isla markaana waxa weeyaan uu doonayo in midkiin uu udxiyeeyo timihiisa iyo cidihiisa iyo jirkiisa iyona waxba ka taabanin ayuu nabigu عليه الصلاه والسلام aadaabtii ay kamid tahay markaas udxiyada inahaas ayaynu ku soo koobaynaa qaybta ciida maalinka ciida iyaduna aadaab gooni ayay leedahay inagoo soo koobayna ciida waa in markaas waxa weeyaan horta marka hore salaada ciida waa inaan la fudaysanin oo la xaadiro sidoo kale ciida waa in loo maydho sidoo kale waa in markaas yar iyo weyn macal dumarka dhiiga leh waa inay baxaan oo ay tagaan si dacwada muslimiinta iyo khayrka iyo ducada ay uga qayb galaan sidoo kale maalinka ciida waa inuu qofku xidho dharka ugu fiican uu heli karo haday kuwa cusub yihiin iyo haduu waayo dharkiisii kale kuwii ugu fiicnaa inuu qaato markaa sidoo kale takbiirta waa in la badiyo markaa ciida iyadoo laba qaybood isku jirta tii mutlaqa ahayd ee maalmahan bala soo waday wallahu akbar inuu qofku celceliyo iyo tii muqayyadka ahayd oo salaadaha gadaashooda dadku markaas waxa weeyaan ay takbiirsadaan sidoo kale haduu qofku suuq joogiyo haduu wada marayo haduu fadhiyo haduu taagan yahay haduu jiifo intaba takbiirta inuu badiyo sidoo kale maalinka ciida
in markaas waxa weeyaan tahaniyada iyo markaa taqabbal Allahu minna wa minkum saalix al-a'maal in la badiyo iyadana maalinka ciida oo khayrkeeda laga faa'iideysto sidoo kale markaas waxa weeyaan Allahu musta'aan maalinka ciida dadka qaraabada inay isxiriiriyaan oo iska warhayaan kii telefoon lagu la hadli karo iyo kii lugba lagu gaari karo iyadana intaana lagu dadaalo sidaas oo kale maalinka ciida waa inaan macaasi lagu qaabilin oo markaas waxa weeyaan Allahu musta'aan alla ka cabsi lagu qaabilo gabdhuhu waa inaan la qaawinin waa inaan maryahan khafiifka ah ee markaas shaandhada ah waa inaan loo soo xirin sidoo kale waa in markaas timo kale aan loogu xiriirin madoobayso rag iyo dumar midna waa inayna marsanin oo cidina ayna marsanin sidoo kale markaas waxa weeyaan waa in laga warhayo hoteelada dad kale waa in Ilaahay ka cabsadaan oo dadka imanaya ay u foojignaadaan oo xumaan aan lagu sameeynin oo markaas waxa weeyaan 3 saac iyo 2 saac la kareysanayo laga fogaado oo laga xarqimo oo la iska kaashado mulkiilaha hoteelkana si gooniya inuu arinta noocaas ka foojignaado waa in markaas waxa weeyaan waalidku awlaad gabdhuhu meeshay aadayaan ay ka warhayaan wiilashu meeshay aadayaan waa inay ka warhayaan waa in markaa xumaan aan la sameeynin qimaar iyo toojali la ciyaaro iyo PlayStation la ciyaaro waa inaan lagu qaabilin qaadi iyo qurun waa inaan lagu qaabilin darooga iyo xashiishad iyo khamro waa inaan lagu qaabilin waa in maalinka markaa macaasida iyo dunuubta waa in markaas waxa weeyaan aan la sameeynin baaqaygu wuxuu yahay marka dawladda aan ugu baaqayaa golaha arrimaha islaamka ay ugu baaqayaa waxa weeyaan culimada maalinkaas iyo habeenka wadooyinka magaalada macaasida ka dhacaysa ama wiilasha iyo gabdhaha ajaanibta kala ee dhexda isqabsanaya ee sawirada galaya ha noqdaan ama siyaabo kaleba ha noqotee qolo walba qaybta kaga aadan ha ku dadaalaan dawladda waxaan leeyahay haddii macaasida la fasaxo oo laga danqan waayo amni iyo nabadgelyo la heli maayo sababtoo waxaan loo helaynin ilaahay baa laga cadhaysiiyay ilaahay haddii laga cadhaysiiyana amniga de ilaahay baa bixiyo subxaanahu wa tacaala marka ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan laga cadhaysiinin waxaan leeyahay markaas waxa weeyaan hawsha askarta iyo dadka kolley wadooyinka taagan ee amniga sugaya ku ballamiya sidoo kale markaas waxa weeyaan waxaan leeyahay golaha arrimaha islaamkana wacyigelinta iyo markaa awaamirta iyo ka hadalkeeda iyo markaas waxa weeyaan ka qayb qaadashadeeda ku dadaalaan culimaduna sidaas oo kale nin walba masaajidka uu joogo iyo markaa macadka uu joogo iyo xaafadda uu joogo ha ka wacyigeliyo oo markaas waxa weeyaan macaasida dadka ha laga wacyigeliyo insha Allah tabaaraka wa tacaala marka waxaan codsanayaa in ilaahay laga baqo oon macaasi iyo dunuub iyo dambi ciida aan lagu qaabilin sida ilaahay rasuulkiisu raali ay ka yihiin loo farxo sida ilaahay rasuulkiisu raali ayna ka ahayna aan loo farxin taasna waa dardaarankayga weeye insha Allah tacaala hadii ilaahay yiraahdo maalinka ciida marka laga soo noqdana waa in markaas waxa weeyaan labada wado la istoo mariyo wadana laga sii tago wadana laga soo noqdo ala kulli maalinka ciida macaasi iyo dunuub yaan lagu qaabilin aadiyad baad mahadsantihiin وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.